guddiga loo saaray inay soo magacaabaan ugaaska cusub ee bedeli doona allaha u naxariistee ugaas cabdulaahi ciise nuur oo dhowaan ku geeriyooday dalka Turkiga ayaa maanta munaasabadda ay ku qabteen degmada Boocame ee gobolka Sool waxay ku shaaciyeen inuu si rasmiya ugaas Cabdulaahi u buuxin doono booskiisii wiil u dhalay oo lagu magacaabo Maxamuud ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur. munaasabadda lagu shaacinayay ugaaska cusub ee ugaas Maxamuud ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay guddiga loo xilsaaray soo magacaabidda ugaaska cusub isiimo nabadoonno cuqaal xildhibaano ururada haweenka aqoon-yahaniin maamulka degmada Boocame iyo marti-sharaf kale. gudoomiyaha guddiga loo xilsaaray soo xulidda ugaaska cusub kana mid ahaa qabanqaabiyaasha xafladdaasi Cabdirasaaq Xasan Gacmay ayaa ka warbixiyey qaabkii ay u soo xuleen ugaaska cusub ee yeelanayso beesha Soomaaliyeed ee Xasan Ugaas. waxaynu halka isugu nimi baahinta ama shaacinta ugaaska cusub ee beesha Haaruun Xasan ugaas Maxamuud ugaas Cabdulaahi. beesha Haaruun Xasan ama Xasan ugaas markay garowsatay in ay noqon karin hoggaan la'aan maadaama hoggaankoodii hore Allah u naxariistay uu geeriyooday waxaa lagama maarmaan noqotay in la sameeyo isinka waxaa loo saaray samayntiisa ama xulitaankiisa guddi ka kooban 60. guddigaas waxay raaceen habdhaqanka u yaalla beesha Daarood oo ah haddii boqortooyo ay meesha ka baxdo in dhaxalkeeda ay leedahay caa'iladiisa. sidaa daraaddeed waxaanu ku xulannay sifaarahan soo socda. kow Maxamuud waa nin ugaas Maxamuud waa nin da'yar markii aabihii uu xilligaa leekaa Allah u naxariistee wuxuu Soomaaliya u hayay xil aad u weyn wuxuuna sumcad ugu lahaa sida uu hadda sumcad ugu lahaa Allah u naxariistay xilka hayay. sidoo kale dadweynihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadda lagu shaacinayay ugaaska cusub waxay soo dhaweeyeen ugaas Maxamuud ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur waxaana ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin soo magacaabidiisa. waxaan maanta u hambalyeynaa oo aanu halka isugu nimi bishu ay tahay 13 bishii 9aad 2016 ugaaskii aanu isku raacnay haddaanu nahay odayaasha iyo guddidii Haaruun Xasan bishu markay ahayd 11 2016 maalintii Carafa inaanu baahinay oo aanu shaacinay inaanu u dooranay ugaas Maxamuud ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur inaanu dooranay ayaanu baahinaynaa maanta ay bishu tahay 2016 waxaan ahaa 60kii hore ee ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur kuwii doortay baan ka mid ahaa maantana waxaan ku jiraa ugaas Maxamuud ugaas Cabdulaahi kuwa doortay waxaan ilaahay ka rajaynayaa ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur oo qiimaha iyo qaalaha u lahaa in ilaahay ugaas Maxamuud ugaas Cabdulaahi uu noqdo inaanu si buuxda u soo buuxinay kaalintii ugaasnimada oo ay beeshu isku raacday tan iyo dibadda wada tashi badan inay doorato ugaas Maxamuud Cabdulaahi Ciise Nuur. ugaas Maxamuud ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur haddaanu nahay aqoon-yahanada beesha haddaanu nahay dadka aqoonta leh ee beesha waxaanu la qaadanay dhaqanka guurtida waxgaradka odayaasha culummada beeshu xulashada ay xusheen ugaas Maxamuud ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur. waxaan ummadda Soomaaliyeed ee baaqooda lagu soo yeerayay ee ahaa in ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur ma doorateen war waa dooranay waan isku raacnay xasan ugaas dhammaantii wuu isku raacay xasan ugaas waa jiddi jiddi waa isku raacday jiddi waa wada xasan ugaas oo dhan wax naga maqan haba yaraatee ma jirto. waxaanu ducaynaynaa ayaan diyaaru nahay ugaaska la doortay umaadisay inuu anfaco ugaaska la saddexda qaaradood ee Yurub
North America, Africa, intaba qurba joog baa ka joogta. Waxaan doonayaa in aan u sheego qurba joogtiina soo wakiilatay nagu soo wakiishay in aanu dadkayaga hawshaa kala qayb galo in aanu waajibkii aadna siisaan aanu gudanay hawshii siday ahayd aanu uga qabanay aanuna go-aankii la soo gaadhnay dadkayaga in la isla qaatay ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise nuur cabdi fataax cabdulaahi kalsan TV garowe.